madax dhaqameedka waxgaradka odayaasha qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Oodweyne ayaa maanta kulan ay si wada jir ah u qabteen ay si baan ugu dhaliileen xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Axmed Siilaanyo taasoo ay ku dhaliileen inuu faragelin qaawan ku hayo golaha wakiilada Soomaaliland iyo waliba xarigii habeennimadii xalay lagu la kacay gudoomiyaha tala iyo Tawfiiq Xasan Xuseen Faarax waxaanay madax dhaqameedkan carabka ku dhufteen in aanay marnaba u dul qaadanay faragelinta lagu sameeyo golaha shacabku ay soo doorteen iyo in waliba odayaasha magaca ku leh Soomaaliland loo taxaabo xariga iyaga oo waxba galabsanin iyaga oo mas'uuliyiintani farta ku goday inuu mas'uul ka yahay arintaas wasiirka madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali Xasan waa siday hadalka u dhigeen waa kuwan iyaga ka hadlaya arinkaasi waa saddexdii golaan inuu ka mid yahay golaha haduu wareero de Soomaaliland oo baawreeysa marka waxaan u leenahay dawladda faraha kala dhex baxdo baarlamaanka waxa kala oo cambaareenna gudoomiyihii tala iyo Tawfiiq ragii xalay kala baxay xiray waanu cambaareenna aad baan uga xunay gudoomiyihii beesha habari wariis ee tala iyo Tawfiiq ragaa xiray waxaan u leenahay sida ugu dhaqsaha badan soo daayaan waxaan leenahay baarlamaan sharci oo sharci loo doortay golaha baarlamaanka waxay hadii dawladdu fargeliso ay gacanta geliso waxa banaanaa inta golayaal kale la furaa شايف واحد مرة يقول إيش قلها أفراد كذي ما أنت هذه قولي شرعي هلا فرفريو بدأ شرعي الحين بايونية وعن دولة شبرت ثمانية قرق ثمانية بوشينا أنا هم عقول كودي نبهر لاي إن أردت الدولة فراك بقى فراك ربح ويبدأ يشرعي عن تودي شرعي ذكيتي هاي كاسوها مدح طاطانة مدح الغميدة مدح الغميدة حسن حسين حرق حسن حسين لا حلي اللي قلبها يقول يث يعني رجعت أنا ركضت حل ماها خاف إن ما لحظة لا أبي بركة اللي قلبها يقول جود